kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiina meel walba joogtaan waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha saaka waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kulamadii xalay la ciyaaray ee UEFA Champions League iyo natiijooyinkii laga kala gaaray. Haddaba kooxda Arsenal ayaa waxa ay markaasi si aan markaasi caadi ahaynba ay ku garaacday kooxda Atletico Madrid oo markaasi oo ahayd koox markaa difaaceeda iyo dhibkeeda farabadnaa. sidaa daraadeed kooxda Arsenal markaasi waxa ay kambiida hore akhrisay Diego Simeone iyo ciyaartoydiisa qaabka ay u ciyaarayaan iyo qaabka bedelka ciyaaraha ee markaasi macalinka Arteta oo sameeyay kambiida dambe ama lugta dambe ciyaarta markii loo soo laabtay. haddaba 57 daqiiqo Gabriel Magalhaes ayaa markaasi gool u dhaliyay oo markii uu goosha madaxa uga dhaliyay Bluson ama free kick u yaalay oo isla markaana uu ka caawiyay Declan Rice ayaa waxay noqotay meeshaasi tusbax go'ay oo kale in marka Atletico Madrid loogu qulquliyo goosha. goolasha ayaa waxa ay noqdeen kuwa 13 daqiiqo gudahooda 4 gool oo xiriir ah loogu shubay faraqa. haddaba Victor Gyökeres oo 9 kulan ku dhawaadana wax gool ah dhalin ayaa xalay 2 gool oo dhaliyay. waxa uu sheegay markaasi in wali ay koonkiisa oo u furantahay kooxda Arsenal goolashana markaasi oo dhalin karo xiliga oo rabo. sidoo kale kooxda Benfica ayaa markaasi waxa ay timid dalkaas Ingiriiska oo kooxda Newcastle ay markaasi marti u ahayd. Newcastle ayaa 3-0 dhagaha kaga qabtay kooxda oo hogaaminaya macalinka u ahaa Jose Mourinho. Benfica ayaa waxaad moodaa markii championka inta kulan ay dhashay inaysan wax guul ah ay ka soo hooynin kulmadii la soo dhaafay. ayadoo Qarabag markaasna kulankii ka horeeyay oo ahaa mid ay 3 ay indhaha kaga soo dhifatay oo markaasi guul ay meesha kala soo kulantay kooxda Benfica. haddaba Newcastle ayaa si carcar leh xalay ayaduna 3-0 ay markaasi ku garaacday kooxda Benfica. Villarreal oo ayaduna martigelineysay kooxda Manchester City ayaa ayaduna looga badashay 2-0 halka Inter Milan ay ayaduna 4 ay ku badisay. sidoo kale waxa xalay ayaduna si aan innaba caadi ahayn ay ku badisay Bayer Leverkusen dhigaha loo garaacay in ka badan half dozen gool ah. waa 7 gool ayaa laga dhaliyay 7 gool oo markaasi ay xalay markaasi farqaha loo gashay kooxda Bayer Leverkusen oo aan form fiican ku jirin sanadkan kadib markii uu ka tagay tababarihii hore oo koobka u qaaday ee Xavi Alonso. haddaba kulamadaas iyo kulamo kale sidoo kale waxa ay kooxda Barcelona iyaduna half dozen ay iyaduna kaga badisay kooxda Olympiacos ee ka soo jeeda dalkaasi Greek. Olympiacos ayaa ayadu markaas waxa ahayd 2-0 kambiida hore lugta looga badiyay lagu lahaa kadib markii lugta dambe ay timidna waxa markaas qaadatay kaarka casaanka isla markaana waxay sababtay in 4 gool oo kale farq ah loogu sii shubo ee la yiraahdo qaado half dozen gool ah. 6-1 ay markaasi ku badisay kooxda Barcelona. taasna waxa ay markaasi dhigaysaa in kooxaha qaarkood ay awoodooda halkaasi ay ku muujinayaan. haddaba waa kuma ama waa kooxda awoodda u yeelan karta UEFA Champions League inay qaato sanadkan. kooxaha dheeliya imikan waxa markaasi u cadcad ama marka la sheego qaybaha qiimeynta loo qiimeynaya ama super computer oo ku qiimeynaya ama dadka kale ee sportiga yaqaana kooxda Arsenal. waana sababta kooxda Arsenal inta badan loogu saadaalinayo inay ku guuleysato UEFA Champions League sababtoo ah 18% ayada ayaa loo qiimeynayay ama super computer ama dad ciyaaraha saadaaliyo inta badan ay u qiimeynayeen. qiimeyntan waxay timid kadib markii la arkay bandhiga kooxda Arsenal iyo qaabka ay u soo bandhigayso ciyaaraha iyo sidoo kale difaaceeda iyo qadka dhaxaba sida iskugu xiran yihiin. walow kooxda Arsenal waayihii ugu dambeeyay ay aad daciif ugu tahay xagga dhalinta goolasha. kooxda waxa laga rabay inay goolo fara badan ay markaasi farjiso ay markaasi ay tiraado waatan ay qabsada lugta hore ee ciyaartana la kala dilo ciyaaraha. laakiin saasay tahay kooxda Arsenal aad bay u adag tahay in gool laga dhaliyo 9 kulan oo xiriir ah ayaa imikan wax gool laga dhalinin. 9 kulan oo kamid ah kulamadii UEFA Champions League la dheelayna
ayadana sidoo kaleeto wax gool ah lagama dhalin. tobankii kulan ee ugu dambeeyay ay kooxda Arsenal ayaa waxa kaliya shabaqooda la soo taabtay 3 mar ama 3 gool ayaa laga dhaliyay, taasi oo ku cadaynayso sida ay kooxdu u adag tahay xagga xirashada difaaca oo ayna suuragal ahayn inaad markaasi jawiso shubka weyn ee markaasi u yaala kooxda Arsenal. haddaba Saliba iyo Gabriel Magalhaes oo ah difaaca shubta ah ee kooxda Arsenal ay ku tashato dhiigana u shuba kooxda Arsenal, isla markaana oo kooxda Arsenal ka yahay Ramoska Real Madrid oo sigoo da'yaraay ee joogi jiray oo kale. haddaba labadaas ciyaartooy markii dib loo soo dhaafo kadib ayaa markaasi loo iman karaa Raya nafsigiisu ma yaro oo dab yar ma shidayo, sababtoo ah wuxuu markaasi sameeyaa oo badbaadiyaa kubado aad iyo aad halis u ah oo kooxda in badan markaasi laga dhali kari lahaa haddii ay markaasi oo Raya u joogi lahayn. saaxiibayaal aad baad u mahadsantihiin asxaabteyda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan. haddii aad nala soo gaartay dhamaadka barnaamijkeena, fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad like-ta, commentiga iyo share-ta inoogu dadaashaan. haddii aad fadlan aad nagu cusub tahayna follow inoo dheh page-ka oo sii share gareey si asxaab fara badan oo adiga kugu xiran ay u helaan. haddaa hore noola joogtana fadlan share-ta inoogu dadaal si markaasi oo muuqaalkeena meel dheer uu gaaro. commentiga iyo like-tana hanaga ilaawin. asxaabteyda qiimaha qaayaha inaga mudan waa saaxiibkii Maxamed Abuukar Baariyo wadin leh sidaa iyo nabadgelyo tan iyo inta dib idinku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.